munaasabada sagootinta ardada dugsiga sare ee iskuulaadka Albushra waxaa ka qayb galay maamulka iyo macallimiinta iskuulka, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Waxaana xafladan lagu maamuusay ardadii sana dugsiyeedka 2021-2022 oo natiijo sare ka keenay imtixaanaadkii dugsiyada sare ee dalkan Kenya. waxaan maqli jiray ma tiraahdaa nugaal baa durdur weeray oo dacmo laga oro dadmo qaadanaya. waxaan aad ugu faraxsanahay in xaga dheera waxbarasho loo soo doonto meeshii Nairobi iyo Garissa iyo Mombasa iyo Nakuru niyari loo aadi jiray in xaga dheera loo soo doonto siba Albushra loo soo doonto waa wax aad ugu farxo. waana uga mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta hawshan soo shaqeeyay kaliya ma ardayda waxa hawshan qabtay waa waalidka iyo maamulka weeyaan. waana uga mahadcelinayaa aad baan u soo dhaweynayaa. waxay ahayd baan u maleynayaa waqti laga joogo dhowr 10 sano maalinkii shirka inta aan ka hadlaynay in iskuul secondary la dhiso oo bulshadu ay dhisato oo la lahaa 500 aan isku qorro waqti yar baa laga joogaa waan u maleynayaa. waxaan ku talin lahaa oo ku dar lahaa hadalka inta la dhahay waa la dhahay bal inaan ka fikirno ardaydeena noo baastay oo xeryahan qaxoontiga dhadhaab ka baastay oo heer jaamacadeed maakiskada keentay in aad u fara badan yihiin yaa ilaahay maadiisa. waxaan u mahadcelinaynaa waalidiinta because waxaan hadda lagu faantanayo oo la leeyahay waa la baasay iyo waxaan baa la qabtay iyo diin iniga ahaan waxa ma bay maan lahaynba sida xaqiiqada ah waa hadda hay'adna waxaan soo baranay waalidka meeshuu ka taagan yahay waxbarashada waxa waa mid ugu hore waay maxay la ardayda meeshuu ka soo baxaya waa duuba oo waxa fiican ku haysanin ama waalid dhahay ka iskuul aad aysan jirin maba waxaan hayta hadda lama helan marka anaga ma sii hadal badanayno waa idin mahadcelinayna insha Allah iskuulka dhan waxaan u mahadcelinaynaa Mukhtaar hay'adna waa ninka nabadgeliyada aad uga shaqeeyay intuu noo imaado anaga hadda xagar dheer intuu nala joogay marka asagana in aad garab aad siisan oo lala shaqeeyo inagana idinku dhiirigelinaya. maamulaha iskuulka Albushra Salebaan Cumar Kaynaan iyo maareeyaha guud ee iskuulaadka Albushra Cabdiwali Xuseen Maxamed oo hadalka isaga dambeeyay ayaa ka hadlay guulihii uu iskuulku ka gaaray dhinaca imtixaanaadka iyaga oo guulaha uga mahadceliyay macallimiinta iskuulka iyo waalidiinta ay ubadkoodu dhigtaan iskuulka Albushra. macallimiinta waa mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen ardayda sidoo kale ardayda baxda waxaan leeyahay hore u sii socda jaamacadihii iyo mustaqbalkiini aan gaariga laga dhicin waxbarashada ma dhowba hore u socda insha Allah waa guuleysanaysaan. kuwa hadda soo gelayo form force-ka oo arday ka badan waxaan leeyahay Bushra ku soo dhawaada laakiin waxa waa shuban baa ka dambeeya shuban badan Soma iyo biil iska meelayo natiijada la idin sheegay 227 arday ay 223 arday ay jaamacada u qalmeen kuma celinayno horena uga hadalnay natiijadaas baan u fadhinaa in halkan uga mahadcelino cid kasta oo ka qayb qaadatay waalidku ay koob ka yihiin macallimiintu laba ka yihiin dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay xildhibaanka laga soo doorto deegaankan aan deganahay Faafi qaybta uu ka qaatay security iyo qaybaha amniga qaybta ay ka qaateen oo u sareeyo halkan aynu joogno oo siyaaskeena iyo dhammaan cid kasta oo qayb ka ahayd waa idinka mahadcelinaynaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaad idinku daro abaalkiina waa idin haynaa waxaan filaynaa dadaalkii iyo harjadkii la soo galay kumayna hungoobin. Axmed Abdullahi Jaamac Axmed Dheere Jubaland TV xeryaha Dhadhaab.